السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين وشاكر وحين ليها ميل كستود جوكتان هبين وناكسن مالين وناكسن انت انيتاي او وناكسن ما شاء الله تعالى لما انتين وانا سلام يا waxaana inagu salaamayaa salaanteena qiimaha badan ee islaamka salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta tawbigeena iyo mawduuceena wuxuu ku aadan yahay gabadh yar oo 16 sano jir ah oo dhalatay 2003 bishii 7 xamarna joogto yaa waxa la soo xiriirtay naag la yiraahdo Shiina Gaabow oo masiixi ah ayaa la soo xiriirtay gabadhii bay la soo hadashay waxay ku tiri nin bay u soo dirtay ninkana wuxuu wataa telephone number Ugandis buu wataa laakiin xamar buu joogaa ninkii bay waxay tiri gabadha la soo hadal gabadha soo baraaruji diinta islaamkana ka soo saar laakiin se gabadha gabar yar oo aqli badan bay ahayd oo ilaahay diin ku minadaystay oo maaragtay ma sha Allah taala ilaahay diin siiyay ahayd waxaan 16 jir way 2013 bishii 7 bay dhalatay gabadhii Shiina Gaabow way la soo hadashay waxay tiri habar yar waxaan ku soo dirayaa bible waxaan ku soo dirayaa bible-ka af Soomaali ku qoran yahay dhageyso markaad ku qanacdana isoo wac insha Allah habar yar ana wax walba ku bayaaninaya ama ku kala dhigdhigaya bay ku dhaxday marka gabadhii yarayd waa gabar aad u aqli badan bay ahayd waxay soo wacday wiil wadaad bay soo wacday oo madraso u dhigi jiray waxay ku tiri sheekhow de arintaas ay qabsatay ogow bay ku tiri markaas wuxuu yiri gabadhii wuxuu yiri sheekhu wuxuu ku yiri wiilka wadaadka wuxuu ku yiri madrasada u dhigayay arinta waa arin martay la raba in diintaada lagu baadiyeeyo iska ilaali bay tiri gabadhii codkeeda ina dhageysiinaya باذن الله تعالى بارد ان شاء الله gabadha codkeedan dhageysan doona haduu ilaahay yiraahdo marka bal ila dhageysta wixii ka dambeeyay Shiina Gaabow waxaan ka dhahayn anaga naqaano waxay gaaday waxay rabtaa inay duleyso dadka diinta ku yar ee diinta maartay aqligooda uu ku yar yahay ayay duleynaysaa dadka waaweyn ee wax garanaya cilmiga leh oo ma soo dhaweynayso bal ila dhageysta dhageysi wacan وان شاء الله وسعنيسا waxay leedahay anaga jannana loogu bishaareeyay kuwan iniga diintiina waxay ka sheekeynaysaa way tiri cadaabul qabri iyo waxa loo joogin laakiin anaga ilaahayga nool ee masiixiga ah ee maartay ba janno loogu bishaareeyay waa nabiyullaahi Ciisa bay leeyihiin ilaahayga nool ba janno loogu bishaareeyay subhanallah waxay leedahay marka diintiina waa diin aan waxba ka jirin bal ila dhageyso waxay leedahay gabar yar oo aqliga maartay waan ka aqli badnahay naag wadaadada cilmi badan maanahay de gabadhii yarayd baa waxay u dirtay suuratul qul wallahi u dirtay oo markay qul wallahi u dirtay waxa ku tiri naag gabar yar oo maskaxda laga dhumiyay baa tahay bay leedahay anigu waxaan ka cilmi badnahay waxna waan ka garanayaa waxay tiri kitaabka injiilkan ku soo dirayay dhageyso iyo kitaabka tawraadkan ku soo diray dhageyso bay leedahay marka bal dhageyso gabadha yarta waxay leedahay dhageyso
waxay leedahay ilaahaygaad aaminsan tahay iyo ilaahaygaan aaminsannahay isku mid maaha bay leedahay waxay tiri ilaahaygaan hadda aad aaminsan tahay carabta hagaajisatay waa waxay carab la imaadeen bay ayada ka dhaadhacsiinaysaa marka ilaahaygaad aaminsan tahay iyo ilaahaygaan aaminsannahay laba farqi ilaahayga annaga aaminsannahay waa ilaahayga nool ee jannada na geeyey ee jannada noogu bishaareeyey ee jannada maarta noo raacaya bay leedahay subxaan allah marka isku mid ma aha ilaahaygiinana carabta aaminsan gabadha waxay tiri ilaahayga aad sheegayso aad leedahay wuu nool yahay iyo ilaahaygaanada aad leedahay carabta la imaatay waa laba kala farqi bay tiri gabadha ana waxay tiri ilaahayga subxaanahu wa ta'ala baan aaminsanahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan ka cabsanayaa inni akhaafu allah rabbul alamin bay tiri gabadha yarta ilaahay baan ka cabsanayaa inni anigu akhaafu waxaan ka cabsanayaa rabbul alamin caalamka rabbigiisa baan ka cabsanayaa caalamkan yaa iska leh ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa iska leh markaas waxay tiri waad luunsan tahay waxba ma ogide UK baan ku qaadayaa London baan ku geynayaa bay leedahay gabadhii yaraad waxay tiri dibadna ma rabe walaalay macaanay anigu diintaadana wado anna taydaan wadanaya lakum diinukum waliya diin bay tiri waa 16 jir aqli ilaahay siiyay diin ilaahay siiyay waxaan halkan marka aan kala hadlayaa shiina gaabo baan halkan kala hadlayaa dadkaad baadiyeynayso waa dad waxaad gaadaysaa dadka cilmaaniyiinta ah oo waxbana kala garanaynin oo jaahilka oo diinta ay ku yartahay baad gaadaysaa ama aad rabtaa inaad baadiyeyso waad dhunsan tahay oo adigii baa lunsan oo maartay markaas waxaad leedahay ilaahayga nool subxaanahu wa ta'ala baad been oga sheegaysaa ilaahayga subxaanahu wa ta'ala waxaad leedahay ilaahayga nool ee hadda annaga naqaadayo baad leedahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wa rabbul alamin asaga iska leh koonkan oo dhan ilaahaygan alleeda ciise masiixina waa rasuulki calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay u soo dirsaday weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaad leedahay wiilkiisa iyo gabadhiisii baad leedahay waad ka been abuuranaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxna ma dhalin lamana dhalin waa suuratul ikhlaas buu ilaahay subxaanahu wa ta'ala oga hadlayaa iskagana bari yeelay marka shiina gaabow waxaan ku leeyahay dadka aad waxaad u imaataa dadka wax fahansan ama dadka aqoonta diinta u leh u imow marka inaad baadi ku sugan tahay ayaa lagu sheegaya oo baadi cad aad ku sugan tahay hagaadin dadka aan waxba garanaynin ama qalbigooda iyo maskaxdooda aan diinta u fahansanayn iyo ilmaha yaryarka teenage-ka 16 jirka ah hagaadine u imow dadka wax yaqaano wax kala dood diinta waa la iskala doodaa bal wax kala dood shiina gaabo taasan ku leh waxaan halkan kala hadlayaa waalidiinta Soomaaliyeed gabadha yarta ah waxa la yiri dibad baan ku geynayaa waxa la yiri waxaad rabtaan ku qabanayaa laakiin gabar diin lagu soo barbaariyay ayay ahayd waa ka diiday oo waa ka dhiidhisay waxaan halkan kala hadlayaa waalidiintii baan kala hadlayaa war ilmihiina ogaada oo ilmihiina saaxiib la noqda oo wuxuu jecel yahay iyo wuxuu neceb yahay iyo wuxuu aaminsan yahayba ogaada ilmahaada hadaad saaxiib la noqoto oo hadiyad u soo gado oo maartay aqliga aad u dhisto moral siiso cunugaada wax kasta uu ku sheegayaa iskoolka wixii looga soo qoray uu kula socodsiinayaa laakiin cunugaadi hadaad la saaxiibin ama aad waxba ogeysiinin dee waxa kugu dhacaysa ilmahaada in la baadiyeynayo ayaa ina leeyahay baadida way socotaa waa baadi cad waxa loogu talagalay Soomaalida in lagu baadiyeeyo qaar iimaan hunguri oo maartay hunguri qaato oo caada qaato calooshii shaqaysta ah ba adduunkan waalayo walacagtan way dhamaanaysaa waxay tahay malahan laakiinse cadaab baa damaynaya cadaabka Allahna waa kulul yahay oo aad iyo aad buu kulul yahay marka halkan waxaan inaga leeyahay shiina gaabow iyo shiinaha gaabow labada qof ee isqaftay ee dadka maartay u bandhigaya diinta masiixiga waa dunsantiin baadil baanad ku jirtaane soo hanuuna oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina soo hanuuniyo anaga ina waxa waaye waxaan baryeynaa hanuun baan ilaahay inaga baryeynaa haduu ilaahay hanuun ila doonay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina soo hanuuniyo kana digtoonaada shiina gaabow iyo ninkeedo hebel gaabow la yiraahdo halaga digtoonaado waa walaalkii shaakir oo mar walba aan isku taaganahay inay diinteena diinta ugu qiimaha badan ay tahay buwayaan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay diin kale ma jiraan aan diinta islaamka ahayn diinta islaamka buu ilaahay og iyo aqoonsan yahay oo la ogsoon yahay inna diina 'inda Allahi al-islam diinta islaamka diinka wanaagsan ma jiraan
baadil iyo been haadihi buhtaanun ithmun cadiim been ba iskugu yeedhayaan oo been ba iskugu habar wacanayaan marka waxayna leeyahay ha laga digtoonaado diintaada diinka qiimo badan ma jiraan salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu